barnaamijkeeni arrimaha bulshada haddana waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira aqooniyaan xildhibaan nuur xasan jaamac. alo asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mudane xildhibaane marka hore aad iyo aad baa kaaga mahadnaqaya waktigaaga qiimaha leh ee noo hurtay si aad barnaamijka noogala soo qeyb qaadatid. marka xigta mudane xildhibaane barnaamijka qodobkaan caawa kusoo qaadanay wuxuu ahaa xaqa iyo haldoorka ummadda soomaaliyeed. haldoorkeyga qiimo intee leeg ayuu ku dhex leeyahay ama bulshadu haldoorkeyga ma ixtiraamtaa mudnaantii uu ku dhex lahaa ma siisaa qofkaas ayaan caawa falaqeynayay. bal kusoo dhawow aqooniyaan xildhibaan nuur xasan jaamac. waan dhawahay aad baad umahadsantihiin idaacadda FM Direy sida joogtadeed noogu marti qaadaan ka qayb qaadashada falanqeynta barnaamijyada arrimaha bulshada. kulli aad baad umahadsantahay adiguna. run ahaantii kulley mawduucan mar horena waan ka hadalay bay ahayd oo kulley qaab kale u dhigan. bulshadu kulley waxay leedahay dad dadka indhaha u ah la yidhaahdo mise labeenta bulshada la yidhaahdo. dadkaasi waxa weeyaan waa dadka xagga haga weeyaan bulshada, hadday culimo yihiin oo culamaa udiina yihiin, hadday oday dhaqameed yihiin, hadday fanaaniin iyo abwaaniin yihiin, hadday aqoon-yahana yihiin, iyo hadday dad taariikhda u sida ay yihiin, iyo hadday dad geesiyaalo usoo halgamay ay yihiinba. marka dadkaas ayaa la yidhahdaa dadka haldoorka ah ee bulshada maaragtay maxaa dhadayay hor socda. bulshadu marka inta badan ka dareen ahaan dee dadkaasi waa dadka ay bulshadu jeceshahay. laakiin berigii horena dadkaasi waxay ahayn dadka bulshada haga iyagu indhaha u ah. laakiin waxyaabahan imika soo kordhay waqtiyadan dambe gumaysigii kadib markii gumaysigu uu dhacay, dee gumaysigu wuxuu nagaga tegay dhaqankiisi. marka dhaqankiisa uu nagaga tegay ayaa waxay keentay wixii la odhan jiray dadka role modelka, wixii la odhan jiray dadka tusaalaha u ah in ay isbedesho. oo shalay halka ninka sheekha ah mise ninka xeer yaqaanka ah oo ahaa role modelka, waxaa laga yaabaa maanta inuu yahay ninka film starka ah, mise kubadda cagta maaragtay xiddi kubadda cagta ah, mise qof riwaayad matala uu yahay. dadkaasi inay noqdaan. marka inta badan dawladaha ayaa waxay sameeyaan, dawladahan imika casriga jira ay dadka role modelkooga iyaga yaa sameeya. marka dadka qaarkooda loogu talagalay in dadka lagu mashquuliyo oo ay dee ismadadaal ahaan ay ugu mashquulaan sida fanaaniinta iyo dadka kubadda ciyaara, ayaa haddii dee sidii loogu talagalay ay loo dareensiin waayo jiilka soo koraya ay waxay u qaataan inay yihiin haldoorkiiba dadka in lagu dayda ay ahayd, ayaad maaragtay maxaa dhadayay garan kartaa. marka bulshadu ka ixtiraam ahaan way ixtiraamtaa. laakiin dee waxa isbedelaya waaqicii oo globalizationka intan la galay adduunyadu ay xero quraatay ay noqotay. waxaa laga yaabaa inay imika soo baxeen haldoor caalami ah oo dadku ay eegtaan. inta badanna dadka kubadda iyo ciyaara iyo dadka filimaanta iyo riwaayadaha matalo u badan. marka waaqica waxaaba iska bedelay baan odhan karnaa. waa tahay mudane xildhibaane aqooniyaan nuur, waxaad arkaysaa in ismaamulka magaalada Darqabe iyo nawaaxigeega gaar ahaan ay Soomaalidu degto, waxaad ku arkaysaa dadkii haldoorka oo ah mudnaantii ay ku lahaayeen mararka qaar lama kulmaan. maxaa u sababaad is leedahay? wallahi kulley dee dadku waa dawladdu kulley door bay ku leedahay inay dadkan muujiso oo ay dadkan muujiso aqoon iyaguna ay laftirkoogu daynayaa meel is dhigtaan ma aha. oo dadku markay bulshadu iyadu ay tahay bulsho xagga wacyiga iyo aqoonta ku liita, dadka aan sheegay qiimaha lahayn ba ayaa xagga sare soo maraya oo aad garan kartaa adduunyada kale. laakiin maamuuska dee in waxaan maamuus loo yeelo kow isaga qofka laftirkiisa shakhsiyadiisu qayb ayay ka tahay. ninka gabayaaga imika tusaalaan dibadda joogayay dee waa nin hanti leh, waa nin bulshada dhexdeeda meeqaam ku leh. laakiin annaga waxaa laga yaabaa maalinta yaraad aroos leedahay mise maalinta xaflad laleeyahay mise maalinta dawladda ay munaasabad leedahay in loo yeedho oo lagu qurxisto. laakiin uu yahay dee nolol ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo muuqaal ahaanba dee qofka protocolkiisa qof aanan maaragtay soo jiidasho lahayn oo dadka dhexdeeda aanan meeqaam ku lahayn. taasna marka qaar iyaga laftirkoogu qayb way ku yeelan karaan. marka waxa taasi looga tago waxa oo arrintaasi loo xaliyo waxa qayb ka ah manhajkeena waxbarashada inaan wax ka bedelo
oo manhajka waxbarashadu uu noqdo ku muujinaya dadkeenii taariikhda lahaa halgamayaasheenii iyo abwaaniinteena fanaaniinteena ogaasyadeenna oday dhaqameedadeena culumadeena taariikhdooda iyo waxqabadkooda lagu soo bandhigayo inta imika noolina dee ay soo maaragtay iyaga laftirkooda dee dadka waxtar la oo dee bulshada doorkooga ciyaaraya oo hormood ah inay noqdaan ayna noqon dad kaba qaadaho dadka meelahaas cid ay barjo ka helayaan kaliyaatay daba socda marka maadaama inta badan ay yihiin dadka ra'yul caamka waxa la yiraahdo haga waxa loo baahan yahay in iyaga laftooda ay noqdaan dad soocan oo anshaxiyo iyo dhaqan ahaan iyo fikir ahaanba bulshada maartay kana soocan wixii wadadii loo baahnaana ku hagi kara marka inaan dambe kulley dadku saameynta caalamiga ah ee Mareykanka dhaqanka iyo culture-ka reer galbeedka uu dunida oo dhan dominate gareeyay oo qabsaday baa qayb ka abaan oran karaa in muxuu ahaa meeqaamkii dadyoogaasi haldoorkii inay hoos u dhacaan waatahay ugu dambeyn aqoon-yahan nuur waxaad arkaysaa saad hadda ka hor barnaamijyadii hore aad carabka ku dhufatay dad aan u qalmin magaca bini aadamnimada mararka qaar inayna u qalmin in maad aragteen halboor ahaan boos halboor ahaan la istaajiyo bal dadkeenu inta badan waaqican nool maxaad iyo barnaamijkan dadka hadda nagu xidhanaynu dhegaysanaysa maxaad fariin u gudbin lahayd in ay halboorada ay cid ay u qalma ay ka dhigtaan maxaad fariin u gudbin lahayd wallahi imika qaybta ugu muhiimsan waxaa ka qaatay imika zamankan waxaa saameynta ugu weyn leh waxa media la yiraahdo mise warbaahinta gaar ahaan mediahan casriga social media la yiraahdo inkastoo imika maalmahan aan maqlayay inuu Facebook oo social media waan ka wareegay imika media casriga oo kii hore ka duwan baa loo wareegaya oo platform cusub oo qaabkii hore ka duwan baa loo wareegaya laleeyahay jiilkan hadii talo uu sii tagaya haddana isticmaalkaasi de marka qayb ayuu ka yahay berigii hore waxaad idaacada iyo raadiyo jiray idaacadaha iyo raadiyo marka dadka haldoorka ah bulshada ay tirsanaysa kaliya ta ka soo bixi jiray dadka ambe dadku marka haldoor ah laakiin imika ninka siba mobilkiisa idaacadu ah marka zamankan de waxa la nool yahay casrigii loo oran jiray casriga macna darada waxa la yiraahdaa casriga macna darada mise liidashada ayaa la nool yahay buugaag idil baa laga qoraa dabeecadda ay leedahay oo bini aadanku intan dambe nolosha magaalada de nolosha miyiga waa ka duwan tahay oo nolosha magaaladu de dadku inta badan qurux iyo raaxo loo tartamaya maadaama qurux iyo raaxo loo tartamayo qof inuu raaxaysto rabaayna ma fikirayo maadaama fikirka waxa la jecel yahay marka in la daawado videoyo qosol ah dacaayad ah baashaal ah wax lagu raaxaysto marka qof kasta aan bulshada wax badan ku soo kordhin maadaama dadku inta badan hadafkoodu wuxuu noqday in la baashaalo oo la raaxaysto laakiin berigii hore de baashaal awoodoodu ma hayna qofku de waa la halgami jiro nolosha waa la legdami jiray taasba markaa waxay keentay in de qofka dadka liitay ay xagga hore ay yimaadaan maxay la qofku inuu wax bini aadanku ku fikiro aqli ka hadlayo qofku inuu keeno qofku inuu maskaxdiisa laftirkiisa inuu fahmo laftirkiisa inuu maskaxda uu tuujiyo oo ka fikirayo sababta taasina inuu daalo maskaxda ay daashay keenaysa marka dadku ma rabaan inay daalaan sidoo hadraawi sheegay waxay rabaan wax yar oo loo soo qorqoro loo soo hagaajiyo de hees gabaygii loo qoray oo loo hagaajiyo loo sharaxay oo laxankii loo saaray isagoo sariirtiisa jooga de iskaga baashaado ayuu doonayaa inuu qaybtiisii ku darsado fikirkiisii ku darsado dadku ma rabaan taas baa markaa waxay keentay in dadkaasi liitay iyagu ay xagga hore yimaadaan waana de aakhiru zamanna waa la isaga jiraayo de aakhiru zamanka markasti oo de aakhiru zaman laga soo rasuulku ba yiri de zamanka siba zamanka ka dambeeya waa ka shar badan yahay marka sharkii laftirkiisa xadku goosanaya isaga laftirkiisa bini aadamku imika dhinaca sharka ayuu soo badanaya khayrkuna waa soo ururaya taas laftirkeedu de marka shaydaanku xirtii shaydaanka ayaa marka ku galgalanaysa dunida daafiyeeda isaga de dadka falalka shayaadiinta sharwadayaasha dadka la yiraahdo iyo da xagga hore imanaya imika idaacada waaweyn iyo de media iyo social media na gacanta ku haysta marka taasi waxay sababaysaa in doorka dadka wanaagsan qofka wanaagsan inta badan maaha waxa la yiraahdaa dadka qaylada badan leh sawaxanka badan leh inta badan waa dadka fulayda ah baa la yiraahdaa salaam ninka fulaygi buu ingiriisku yiraahdaa kun jeer ka hor buu dhintaa dhimashadiisa caadiga ninka geesigiina hal mar buu dhintaa isagu markii qadartiisu ay gaadho marka dadkaasi de maadaama oo isa tahay inta badan qofka geesiga ama hal doorkii qof jirjir badan ma ahan oo wax raadiyo oo isa soo bandhiga oo uu isku qanacsan yahay maadaama isku qanacsan yahay inta badan saaxadda kama muuqdo laakiin kan kale maadaama nuqsaan dareemayo qofkan liitay maadaama nuqsaan dareemayo
ayaa waxaa dhacaysa maaragtay nuqsaantiisa siduu buuxiyada jeer waa inuu dadka uu wareeriyo oo maalin kasta